kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobada aan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah ra'iisul wasaare Khayre oo iska diiday codsi uga yimid laba kamid ah dawladaha ugu dhaqaalaha badan qaliijka Carabta. muxuu ku saabsanaa codsigaasi? muxuu uga hor yimid ra'iisul wasaaraha hore inuu aqbalo codsiga uga yimid dawladahaasi? Puntland iyo Jubaland oo 6 qodob hor dhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hor inta uusan furmin shirka magaalada Muqdisho ku qabsoomaya. wararkii ugu dambeeyay ee socdaalka Dani iyo Axmed Madoobe ee ay ku imaanayaan Muqdisho jadwalkii labada madaxweyne oo wax iska bedeleen. Mareykanka oo soo bandhigay lacagaha uu ku bixiyo sugidda amniga dalkeena Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo khubaro caalami ah u dirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa iyo kuwa kale insha Allah waana Isniin 13 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa midaan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. qodobada wada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan ee fadlan nala faafiyo wararkan oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheegaynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. Muqdisho waxaa la filayaa in uu shir 3 geesood ah uga furmo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland iyo hogaamiyaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirkan oo beesha caalamku ay gadaal ka riixayso ayaa dhameystiraya shirka Dhuusamareeb 3 kaasi oo aysan ka qayb galin Puntland iyo Jubaland isla markaana ay qaadaceen waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi. hogaamiyaasha Puntland iyo Jubaland ayaa toddobaadkii hore shir ku yeeshay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana ay sheegeen inay ku heshiiyeen hanaanka siyaasadeed ee ay ku wajahayaan xaaladda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo sheegeen hanaankaas uu xal u noqon karo doorashada dalka isla markaana looga gaashaaman karo in muddo kororsi ay sameystaan hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ay telefoonka kula hadleen mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo toddobaadkii hore intii uu socday shirkii Garowe waxaana ay isla meelgeen qabsoomidda shirka Muqdisho ka furmi doona. shirkan waxaa ka maqan oo aan lagu casuumin maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gobolka Banaadir kuwaas oo ka qayb galay shirka Dhuusamareeb 3 isla markaana saxay go'aanadii lagu gaaray caasimadda Galmudug ee ahaa nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo sida ay noqon doonto. sidaas darteed waxa ay dad badan arrintan u fasirteen in shirkan uu yahay kaliya mid u dhaxeeya Puntland iyo Jubaland oo dhinaca iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay markaasi ka wada xajoon doonaan labadan dhinac khilaafka u dhaxeeya iyo sida labadan maamul loogu qanci karo go'aanada Dhuusamareeb 3. haddaba warqad ayaa helay xog sheegaysa in Puntland iyo Jubaland ay dalaban doonaan in ku dhawaad 7 qodob oo kamid ah heshiiska Dhuusamareeb 3 wax laga bedelo kuwa cusub lagu soo kordhiyo. qodobka koowaad ee heshiiskii shirka Dhuusamareeb ayaa waxa uu markaasi cadeynayay in doorashadu ay noqoto mid deegaan doorasho oo ah sida ay wax ku soo dooran doonaan. waxay u muuqataa in Puntland iyo Jubaland aysan arrinka diidi doonin maadaama doorashada noocaas ah ay ka agdhowdahay mid ay rabeen oo ah doorasho dadban. Puntland iyo Jubaland waxa ay madaxweynaha ay ka dalban doonaan in qodobka labaad ee heshiiska Dhuusamareeb wax laga bedelo kaas oo awood badan siinaya guddiga doorashooyinka ee hadda jira. waxa loo badinayaa in Puntland iyo Jubaland dalban doonaan in awoodda guddiga la qaybiyo isla markaana hoos loo dhigo oo maamul goboleedyada la siiyo awood hoose oo iyaguna guddiyo doorasho loogu sameynayo si xildhibaanada ay doorashadooda gacan uga geystaan. qodobka saddexaad ee heshiiska Dhuusamareeb ayaa dhigayay in 301 erga ay halkii xildhibaanba doortaan. waxaa la saadaalinayaa in labada maamul ee Puntland iyo Jubaland aysan aqbali doonin qodobkaas iyagoo dalban doona in 101 erga laga dhigo halkii xildhibaan inay doortaan. wax kale oo diidi doonaan in kuraasta la isla doorto maadaama halkaasi ay ka dhalan karto in madaxweynayaasha ay awoodoodu yaraato dad badan maadaama ay wax dooranayaan saameynta ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku yeelan karaan ay yaraato. qodobka afraad ee heshiiska Dhuusamareeb ayaa tilmaamayay in maamul kasta uu ugu yaraan 4 magaalo doorashada ku qabto taas oo la sheegayo in ay tahay arrin ay diidi doonaan Jubaland iyo Puntland. Puntland wax dhiba kuma qabto haddii la yiraahdo 4 magaalo wax ka badan lagu qabto laakiin waxa ay rabtaa saaxiibkeeda siyaasadeed ee Axmed Madoobe inaanu dayacmin kaas oo haysta hal magaalo oo kaliya uu doorasho ku qaban karo oo ah magaalada Kismaayo. sidaas darteed Axmed Madoobe wuxuu dalban doonaa in doorashadu ay ka dhacdo caasimadaha dowlad goboleedyada. qodobkaasna sidaas wax looga bedelo. qodobkii 6 ee heshiiska Dhuusamareeb 3 waxa mid ugu daran oo tuunka badan ka muuqanaya waxaana ay ahayd in doorashada 275 kursi ay hal maalin dhacdo.
Puntland iyo Jubbaland ayaan rabin sidaas in wax la yeelo maxaa yeelay waxa ay ka cabsanayaan in musuqmaasuq iyo wax isdaba marin baahsan ay dhacdo. Heshiiska Dhuusamareeb waxaa ku xusnaa in guddiga doorashooyinka ay iyaga go'aan ka gaarayaan meesha la dhigayo kuraasta aan deegaanadooda lagu dooran karin ee Al-Shabaab haystaan. taasi uma fiicna Axmed Madoobe maxaa yeelay waxa ay noqonaysaa dhammaanba in kuraasta la geeyo gobolka Gedo taas oo ku noqon karta halis weyn. labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa heshiiska ku soo kordhi kara ama ku soo siyaadi kara in la iclaamiyo bisha ay bilaabanayso doorashada Soomaaliya. haddaan si kooban qodobadaas idinkugu soo koobo waxa wax laga bedeli doonaa qodobka tirada ergada ka hadlaya waxay ka dhigi doonaan siday u badantaa Puntland iyo Jubbaland heshiiska la galayo 101 waxaa sidoo kale la cayimi doonaa waqtiga doorashada oo aan ku jirin heshiiskii hore iyo in kuraasta la isku daro waa ay diidi doonaan. guddiga doorashada awoodiisa ay dhimi doonaan hal magaalo inay doorashada ka dhacdo ay ka shaqeyn doonaan sida ay rabaan iyo in aan hal maalin doorashada la qaban. waa qodobadii si kooban aan idinku sheegay. waxa qodobada la filan karo in lagu siyaadiyo ay sidoo kale iyo kuwa laga dhimayaba ay horseedi karaan in heshiiska saddexdii maamul ee hore u soo socday iyo gobolka Banaadir ay iyaguna markooda qaadacaan taas oo abuuri karta jahwareer siyaasadeed oo hor leh. dhinaca kale haddaan fiirino wararkii ugu dambeeyay ee imaanshiyaha madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland la xiriira haddii aan fiirino waxa lagu waramayaa in labadan hogaamiye jadwalkooda wax laga bedelay isla markaana ay suuragal tahay in ay dib u dhacdo imaanshiyahooda. wararka aynu helayno waxay sheegayaan in laga yaabo in talaadada ay yimaadaan. labada madaxweyne ayaa waxaa imaanaya wufuud ka hor dhaca magaalada Muqdisho. diyaarado wada ciidamo ayaa yimid magaalada Muqdisho shalay ilaa iyo maanta. waxaa sidoo kale jira wafdi wasiirro oo hor u dhac ah labada madaxweyne oo yimid. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa warar hoose ay sheegayaan inuu degi doono Villa Soomaaliya sida uu rabo madaxweyne Farmaajo. waxaa sidoo kale sheegaya in Siciidani asna la dejin doono guri ku dhagan Villa Soomaaliya taas oo fududeyn karta in hogaamiyaashan kulamadoodu ay noqdaan kuwa isdaba jooga oo degdega. wixii warar ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. markana Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa iska diiday codsi uga yimid laba ka mid ah dowladaha ugu dhaqaalaha badan Khaliijka Carabta. Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha ugu waqtiga dheeraa Soomaaliya burburkii kadib waxaa markaasi qaab fowda ah xilkii kaga qaaday baarlamaanka federaalka Soomaaliya 25kii bishii hore. xasan Khayre oo haystay fursad ahayd in uu sharci darro ku tilmaamo fiditaanka baarlamaanka ayaa sameyn sidaas waxaana uu ku dhawaaqay inuu iscasilay oo uu tanaasulay danta ummadda Soomaaliyeed. taasi waxay u abuurtay sumcad badan. falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Khayre uu lahaa hami weyn isla markaana uu ku jira hami ah in madaxweyne Farmaajo uu ka bedelo kursiga marka la gaaro doorashooyinka soo socda. inkastoo Khayre uusan fagaara ka sheegin damaciisa kursiga ugu sarreeya dalka haddana waxa ila xoogaal oo ku dhowdhow ra'iisul wasaare hore ay sheegayaan in Xasan Cali Khayre uu tartami doono doorashada soo aadan kursiga dalka ugu sarreeya. Xasan Cali Khayre ayaa sumcad badan sameeyay intii uu talada joogay garaan xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo lagu ammaanay sida uu boorka uga jafay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo inta badan ra'iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyay aysan ku shaqayn jirin. waxaa kaloo lagu ammaanay sidii uu uga dhabeeyay dagaalka ka dhanka musuqa ee xafiisyada dawladda ka jiri jiray iyo in uu dawladda gaar ahaan hay'adaha maaliyadda ka dhigay kuwa ay caalamku aamini karaan. ra'iisul wasaarihii hore ayaa hadda ka mid ah siyaasiyiinta ugu taageerada badan Soomaaliya isagoo taas markaasi ku kasbaday shaqadii uu qabtay intuu xafiiska joogay. haddaba warar hoose oo warqaad TV ay heshay ayaa sheegaya in laba dawladood oo ka mid ah kuwa Khaliijka inay xiriir la soo sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore isla markaana ay kala bardhigeen. xogta hoose aan helayna ayaa tilmaamaysa in dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ay wakiilo u soo direen ra'iisul wasaare Khayre isla markaana ay ka dalbadeen arrin uu Khayre diiday. Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ka faa'iideysanaya sumcadda iyo saameynta siyaasadeed oo uu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ayaa ka codsaday in ololihiisa doorashada ay markaasi ay maalgeliyaan haddii uu tartamayo doorashada soo socota. Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dagaal weyn kula jira dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka madaxweyne Farmaajo ayaa u ballan qaaday ra'iisul wasaarihii hore in balaayiin dollar ay ku bixin doonaan ololihiisa doorashada isla markaana ay codad fara badan u iibin doonaan haddii uu kursiga ugu sarreeya dalka u tartamayo. ujeedkoodu waxa uu yahay in marka uu guulaysto uu Soomaaliya ka dhigo dabadhilif siyaasadeed oo hoostiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. haddaba ra'iisul wasaarihii hore ayaa diiday dalabka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ay u soo bandhigeen
waxaana xogta hoose aynu helayno ay tilmaamaysaa in Khayre uu u sheegay Imaaraadka iyo Sacuudiga in uusan siyaasadooda ku shaqayn karin, taasina ay tahay sababta uu diidayo maalgelintooda siyaasadda. waxaa kaloo la sheegay in ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku wargeliyay Imaaraadka iyo Sacuudiga in ay joojiyaan lacagaha xad-dhaafka ay ku faragelinayaan doorashooyinka soo socda, isagoo tilmaamay in Soomaaliya ay taqaano cidda ay dooranayso. sida la fahansan yahay, Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa doorashooyinka soo socda kula dagaalami doona Qatar iyo Turkiga oo aad u taageera dowladda madaxweyne Farmaajo, waxaana la sheegayaa in ay baadi goobayaan musharaxiintii ay dhisi lahaayeen oo ay dhaqaale xooggan siin lahaayeen. labada dal ayaa la sheegayaa in ay musharaxiin badan sanadkan la imaan doonaan, iyagoo wadacay qaar badan oo musharaxiin Soomaaliyeed oo ay isleeyihiin fursad badan ay leeyihiin. Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa dana badan ka leh Soomaaliya, waxa ayna dhaqaale badan ku bixiyaan sidii dowladda hadda jirta loo ridi lahaa. qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena wararka ayaan isla soo gaarnay daawadayaal. markana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta wafdi u dirtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. wafdigan ayaa waxaa horkacayay wasiirka xogeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xirsi Roble, waxaana ku weeliyay socdaalka maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan. sidoo kale waxaa wafdigaasi ka mid ahaa khubaro ajaanib ah oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u dirtay garoonka Beledweyne, kuwaas oo indhayn doona garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaaladaasi. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo mas'uuliyiin kale ayaa wafdigan ku soo dhaweeyay gudaha magaalada Beledweyne, waxaana la sheegay in sidoo kale ay dhagax dhigi doonaan mashruuc laga fulin doono garoonka iyo sidoo kale tababar loo furayo shaqaalaha garoonka, kaas oo kor loo qaadayo aqoontooda. garoonka Beledweyne ayaa u baahan dib u dayactir ballaaran, waxaana dhowaan ku dhacday diyaarad sahay u siday ciidamada Jabuuti, taas oo laga lahaa waddankaasi Kenya. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya ayaa ka hadashay amniga dalka, gaar ahaan lacagaha uu ku bixiyo Mareykanka 20 sano la soo dhaafan uu ku bixinayay. kusimaha safiirka Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay Charles Charlotte ayaa golaha ammaanka ka hor shaacisay in lacag gaaraysa 5.3 bilyan ay ku bixiyeen amniga Soomaaliya, isla markaana aysan ka soo bixin wax natiijo ah sida hadalka ay u dhigtay. sidoo kale waxay intaasi raacisay in aysan isu dhigmin lacagta faraha badan ee lagu bixiyay ammaanka Soomaaliya iyo natiijooyinka ka soo baxay. Charlotte ayaa sheegtay in Mareykanku uu muddadaas adeegsanayay duqeymo ka dhacay Soomaaliya oo ka dhan ah Al-Shabaab, balse tallaabooyinka military kaliya aanay xal lagu gaari karin. Mareykanku weli waxa uu adeegsanayaa duqeymo isagoo oo rajaynaya in uu ku dhufto shakhsiyaad muhiim u ah Al-Shabaab, hase yeeshee waxaa shaki la'aan ah in tallaabooyinka military aanu ahayn xalka kaliya ee lagu guulaysan karo Al-Shabaab. sidaas ayay tiri Charlotte. ugu dambeyn waxa ay walaac ka muujisay lacagaha canshuuraha ah ee la siiyo dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoo tusaale u soo qaadatay weerarka Hotel Elite oo ay sheegtay in dhaqaalaha lagu abaabulay laga qaaday xarumaha ganacsiga ee Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo toddobaadkan Africom shaacisay duqeymaha ay sanadkan 2020 ka fulisay Soomaaliya, kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeenii wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. tan iyo kulantadeena dambe, nabadgelyo.